qofkaan qofkii uu ka faanay ama uu ka dhuumanayo subxaanallah waana waalidkiis ugu yaa walaalkiis hooyadiis aabihiis ama caruur u dhalay taas optionkaas markay tahay waxaan marnaa marka annaga in aan qofkii wacno oo la xiriirno oo aanaan warniyow kiis noocaasaa jiro qofkaasaa ku raadinayo intay ka baxday heblaaye hebel oo hooyadaa ah amba hebel oo aabbaha ah ayaa ila joogay maxaana leedahay dhalinyada qaar waxay ku leeyihiin aniga xalisanaayo family problem waaye aniga hooyaday waxaan dhexmara ma ogid aniga aabbahay waxaan dhexmara ma ogid colaadaa jirto intay ka dhacday hooyaday waa biilaa dadaa soo diraayo nin kalaa qabo lacagay garabtaa waa la hoog iyo ba-ay ku sheegayaan arrinta marka mees ay gaarto ayagaa isku wareejino annaga ma nihin mogtahay dad u gar qaadaayo ee waxaan qabanno waa baafin qofka iga lumo iga maqan waayo waa ka harnaa mana rabno annaga in family problem aan sii abuurno oo controversial iyo comment aan ka raadino qofkaas oo hebel ma aragtayna la yidhi hebel muuqaaladan saas ay noogu qarxaan wallahi ma ka raadino ee halkaan ka eegnaa haddii wax laysku xalin karana dad markaasi aan islana way dhex geli karaan oo familkooda ayaa arrintaas marka ugu dambe isku wareejinaa waana ka harnaa tan kale arrinta AJ family intaan u gudbinta kale waxaa jiro rag fara badan oo inta ka soo dhoofo qurbaha yimaada dalka gabdho guursado uur u yeelo amba carruur ka dhalay iskaga dhaqaaqaa jiro hadhow marka gabadhu ku imaanaysaa waxay ku leedahay ninkaasaa uur u leeyahay amba intuu guursado iga tegay inaan baafiyaan rabaa markaa weydiso waxay ku leedahay xaaskan uu qabay xaaskiisa oo iga qarinaa ana xaquuq ma lihimiya ayadana ma galno waxaan u gelin ninkaan gabadhaama guursanaysa daduu lahaa waxaanana adeeradiisii familkiisa raaday